الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وآيات بقول يستيد كنت من سورة الأعراف كنتم يستيد سورة الأعراف قال الله تعالى قل وحات إلى النبي محمد يا أيها الناس اتقوا إني رسول الله إليكم أنا وحنا رسولك إذنك الله يدين صادري جميعا إذن كوردن الذي إلهي باي صادر له ملك السماوات والأرض سموين كي يدل كوا اسكلها لا إله إلا هو إله حق لو عابدا ما جري سغا مويانه يحيي ويميت سغا وحل بنولايه وحل بدله فآمنوا بالله ورسوله إلهي الرسول كيس الرماية النبي الأمي نبي قال له وحيون إيه وإحنا أنقرين وإحنا آخرين الذي نبي قال يؤمن بالله وكلماته إلهي بالرمين إياه يكل مذيه سوحي وسودة كتاب كستوى كسودة شيء واتبعوه النبي قال راعى لعلكم تهتدون سيئوها منتان ومن قوم موسى أمة نبي موسى قال الذي سوى حكم ذا كوحي ضد يهدون بالحق تدك حق كوشهين يكوهجية وبه يعدلون السجاني كحق صورة يانو ومدى وقعد على السمين يعني وقطعناهم رير بنو إسرائيل وحنو قيبني 12 أسباطا لبيه طبعا جلب بانو كدغني أماما قيبات أما أمضي قبائله وأوحينا إلى موسى نبي موسى نوحيوني إذ استسقاه قومه مركي قلديسي أي بيك الضونين وحرب أنو وحيو ذيبولي أن اضرب بعصاك وشاذا واحد كله فتاة الحجر نجح وكله فطي فانبجست منه وحكسوا بتاعي 12 عينا لبيه طبعا إيلاد قد علم كل أناس قبيلة ولا ما تشلب ولا بوحوا قال مشربهم يشو كعبي وظللنا عليهم الغمام وحنوها لين رير بنو إسرائيل ضرورتي وأنزلنا عليهم المن ملبنا وانوسو دجين رير بنو إسرائيل والصلوى يهلب صلان أمدوا كلوبوا إلهي يدعون من طيبات ما رزقناكم وحانوا يدنكو أرساغنا معان أما كيسا معان عرع وما ظلمونا أننا وحبنا قمي حد كتبنا وحبنا ما يلين بلاي ولكن كانوا وحي نقضين أنفسهم يظلمون نفه هذا بيكو حد قد بيان رير بنو إسرائيل ومدي بقى إلهي ويا سبحانه وتعالى باق بالي جيد النبي عامة وواحد وشيكتا ضدك إن أتهي رسول عالمية رسالة دادونا عالمي تورير غير قريش هذه عرب كلي قواداني كوكوبنين تا ضدك وشيك وانو شيك النبي عليه الصلاة والسلام حانو عدي وحيابها ورسوشي هراك قد وانا inay ka mid tahay waxyaabuhu la gaarka shan arrimood baan la gaarahay buu leeyo waxa ka mid ahaa in loo soo diray dadka oo dhan halkii rasuulada hore gobol iyo qabiilo gaar ah iyo ummad meel degan loo diri jiray marka rasuulku waa caalami waxay quraankuna waa caalami ummadda islaamkuna waa caalamiyiin weey dad iqliimiyiin oo meel gaara ku kooban ma waxay u taagan yihiin caalamka inay badbaadiyaan oo diin la'aantu dhibka ay leedahay ay ka nabad galiyaan shaytaankii baa wuxuu kala dhex galay ilaahay iyo adoomihii oo wuxuu doonayaa adoomaha sidoo ballan qaaday inuu ilaahay ka duwo oo uu ambiyo oo uu naar ku xareeyo marka ilaahay dadkiisa iyo dalkiisa si ay isu helaan diintiisu ayaa loo socdaa rusushuna u yimaadeen marka fariinta dadka gaarsiiya waxa tiraaya ayuhan naas inni rasuulullaahi ilaykum jamiica wa ilaaha iskala cirkiya dhulka waa ilaaha geeriyo nolol bahaya ilaaha hal rumeeyo rasuulkiisana hal rumeeyo rasuulkuna isagaaba horkacaya dadka oo tii ilaahay iyo waxigiisa rumaysan sidaasaana lagu hanuunaa reer banu Israa'iil ma wada halowsane qaar baa hanuunsan baa ilaahay dadkana hanuuniya cadaaladana u taagan inay waxiga ugu cadaalad sameeyaan dadka reer banu Israa'iil kolkii ay gaf sameeyeen waxa ku dhacay xanuunkii la oran jiray tiiha tiihu waxa uu ahaa muddo ay wareersanaayeen muddo ayay wareersanaayeen 40 sanata yatihuna fil ard fartan ka sano way dawaqeen markay ilaahay diideen
ayaa dabeedna la jahawareeriyey oo horiyo dabadiid xagga iyo xagga wareegga iyo dawakhaasay ku jireen dhib badanina wuu ka soo gaadhay kadibna rabbi si uu u badbaadiyo oo waxbaa la tusaye waxaa loo qaybiyey 12 qaybood oo sibdigu waxa weeyaan waa waladulwalad ilmaha awowga loo yahay baa sibdi laydhaa marka inamadii yacquub ayaa farcamay 12 jilib bay noqdeen kuwaasaa intaasoo jilibba 12kaa jilib baa loo qaybiyey markii ay haraadeenna 12kii jilibba afsaar loo sameeyey qolo waliba meel beceel bay afsaartay biyahaasina waxay ka soo butaacayeen dhagaxaasiba ay ka soo butaacayeen nebi muuse usha ku dhuftay calayhi salaam markii ay haraadeen arrinkii walba loo dhib yareeyo nebi muuse baa lay dhagaxa ku dhufo ushaada waa ul cajaa'ib leh kolba dhinac baa loo isticmaalayaa kol cadowgaa laga horgeynayaa kol baddaa lagu kala dilaacinayaa kol sidii riigay u shaqaynaysaa kol waxaa dhaameelkaa xoolaha loogu soo daadinayaa iyo qaraabka noocyo kala duwan baa loo isticmaalayo mucjis ahayd la yaab badan 12 ilood baa ka soo butaacay dhagaxaasi waa kee waa ay dhagax kasta midku doonayaaba ku dhufanaya culimada qaarkoodna waxay leeyihiin waa dhagax gaaraho kii dharka kala cararay berigii markaas thawbi xajar uu lahaa waa dhagax la yaab badan uunoo ilaahay subxaana wa tacaala u irmaaneeyey waxaa loo hadheeyey markii ay kululaadeen daruurta aad arkaysa biyaha xambaarsan baa ilaahay dushooda uu har uga dhigay raashin diyaarsan ayaa loo keenay oo aanay karintiisa xil qaadin xaabadiisa iyo gaastiisa ku hawshoonin almanu wasalwa waa sharaab macaan oo malab lagu sheegay iyo asalwa hilib si fiican loo kariyey oo hilib shimbirood oo aada u jilicsan oo fiican amar buu ilaahay siiye amru libaax dee nicmadaa guddoonta baa layidhi ha ka gaaloobina sidii aynu hore u soo marnay dee waxoodii bay bilaabeen qofka xun ee aan sharafta lahayn ma istaahilo marka la sharfo inuu ka mahadnaqo taa ma kari karo cunsur qalloocan bay ahay nimankaas aayadahanina waa aayadihii aada waxaynu usoo faahfaahinay suurat lbaqara lan nasbira calaa طacaamin waaxidin bayna raashin keligii nama anfacaye bal hadda ilaahay waxaad noo baridaa يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها هذا وحن لقى عنا بيرها يريركا عقارك كلا نوع إلهي نو ويدي وراشين كعالم ككرة لقى كاناي بركة بدنا كنا نقول بدل بينا استوحوا لا تستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى راشين قيمها بدنا إلهي كاناي واحد لنا نقطتين دورسان الكاتب وكبر تبالي وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وحي قفي سميين إلهي وحب ميالين يقع عقوباتي كل عظم وحي نمرك أركينا هلك يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الرسالة عامة وللعرب الشرف ولمن آمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة عالمية عربنا وجهرين يدا شرفت له عدي كستو النبي محمد رميسانا يدا شرفت له وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ومدنا مركز شرفتونيس إلهي وحي جيسك أروريا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الذي له ملك السماوات والأرض sidee bay u dhacaysaa cid aan waxba haynin oo aan ilaahay awoodiisa lahayn iyo milkigiisa in la caabudo ilaahayna laga baydho subxaana wa tacaala ayastaxiqu gayru llahi alcibaada walaysa lahu mulku الsamaawaati wاlard bal cid aan cirna lahayn dhulna lahayn ayaa la caabuday ilaahay cir iyo dhul iyo wax walba lahaana ee awoodiisu dhammayska tirnaydna dadku way ka baydheen nasiib darro weeye فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي مر لبعض بيسون نقط مركي هرنا وحين صارنا
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ومن نمدو مرنا وأمان مرنا ونليل تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا نبي محمد حقي سمرك عليه الصلاة والسلام أمانوي مركا أمضى كلاتها هين ونليل نبي سيدي أمان وقلنا قطي وحوي ورتو من نمدو وحوي قفك وإحنا قرين وإحنا آخرين ومنصوب للأم هو يدي بالو نسبي وأين هويو sababta loogu nisbeeyna waxa weeye wuxuu ku taagan yahay sidii hooyadii dhasho waxna ma akhriyo waxna ma qoro marka nabi maxamed waxay amaan ugu noqotay isagoo aan waxna qorin waxna akhriin ayaa waxaad aragtay alla ka soo daayay oo xigmad iyo jawhar buu habeen iyo maalin dadka u akhriyay 23 sano ayuu khayrkan daldalmayay nabi oo xigmadaasi ka soo burqanays waxna ma qoro waxna ma akhriyo kitaab wax ka soo qoraa ma jiro kitaab uu akhriyaa ma jiro wax ma qoro وعلي بن أبي طالب مركيو هشيس كي صلح الحديبية قري قالوا أي ديدين وري هالكابي وحولانو قعنت إذا كوبين مايو سيقول النبي قد ديدنين لكن هذا غير أي حماسة إسلامية هايس مركا النبي وحولانا بينا يتوسي وتوسي مركا إلا يساقوا ما أخري كراه مركا قبايانا ما هاي النبي احنا ما قري تشرين واحنا ما أخري تشرين أرنت سنة وحي الدليل تاي وحلا وحو شيء إنه وحي إلهي حقي سكيمية ومن نبديس waxay calaamadu tahay marxaati inuu yahay rasuul ilaahay hadii wax qori lahaa waxna akhri lahaana gaaladu waxay helayaan marbarsiye ay ku duraan nabiga asaadiir alawwaliin katabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila wa sheeka baralay uu dadka ka soo qorto habeen iyo maalin baa la soo qaybsiiyay oran jireen isagoo waxna qorin waxna akhri laakiin dadka kale inay u mid noqdaan waa dhaliil bay ku tahay نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة سقرالك إياه أخرينت أدبوا ولد ذلك شري حتى قال هذا كوي محابيست هاي وقبقبتي مركي أيوائين وحي مدح فرشاء أو قالاء داير توح نوبرا لقد إياه قرالك إياه أخرينت نوبرا تاسنا وحويان وحيابها الدين تينو كهرو مرتي قرالك إياه أخرسك ويساقنا وحاب الله قب بلا بين نبيك اقرأ باسم ربك الذي خلق نون والقلم وما يسطرون الله نوابا ku dhaartay subhanahu wa ta'ala marka dadku inay ummidnimada ka baxaan oo luqadaha ay bartay waliba luqada carabiga iyo quraanka ilaahay iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam waa aqoonta ugu muhiimsan ugu horeysa way la yakfi al-iman fi al-qalbi bidun al-ittiba' kuma filla inaynu qalbiga un ka ashhaadano laakiin waa in nabiga la raaca oo diinta la raaca iimaankaagu inuu sugan yahay waxa ka marxaati kacaya إن راعيس الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي قرآن كي السنة إن الدبس عطيكوه قامين إياه أن عاطفة هذا إيا عقل هذا إيا عادة هذا من نوين أنكوه قامين علمي السماوي قوانو كوه قاميه هداد إلهي الرميسان تضع الله يقان تاي وهي لبدا آيضات بادر كيسايس كحيقة الذين يتبعون الرسول هل كان دنبنا إلهي وحوري الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه mar walba amar baa dhacaya raaca bali marka raacitaankaasina waa ka lagu liibaanayo wa min qawmi muusa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun waxaynu ka faa'iideyneen aynu ka baranaynaa quraanku wuxuu ina barayaa cadaaladda marka ummadaha laga warramayo had iyo jeer cadaaladdu waa laga maarmaan in cadaalad la sheego إن عدالة دتك لقو قيميو قفك وناقو ليها آن لقرنين يهود قراء آيات كوي كصور ربين حمان تودي عيبتها الهايين لكن إلهي سبوة الراعينين هبيرات إن تودي إلهي الرميسة مير كقبتي وناكسني سيقارو سدو التاقى إلهي ما وضح حمابا إلهي اليهود يوحا كمدا ضد أمد هنورية وعادلين مركا عيبا يكوكو تاينا ترادر هير هبل ووضعينكا deegaanka halka dadka degan waa wada caynka waligood khayr male wax wanaagsan male caynkaas yihiin cudurrada iyo afxumada ka mid ummadan oo marka cid ka soo jeeda ama meel degan inaad tiraahdo caynkaas ay wada yihiin nacastimay sheegaysaa iyo qiimeyn xumo yuhuud ba quraanku u diiday inuu iswada raaciyo ومنهم من انت امنه بقنطار يؤديه اليك ما wada amaanada rooxaynin ma wada haba ilaahay waxa kamida qaar amaano la xoolo badan hadaad u dhiibata ku keenaya markaan iska ilaalino qalooca la xidhiidha dhinaca qiimeynta
يهتدون يهدون باكلا جرو يهتدون هدي الله أوران لها إيجا هنوسوي يهتدون بالحق تاما هيمك لكن وحوي يهدون بالحق ويكسي حيل ديرت وأنا علم صرف جوا مهم marka hadiya jeer quraanka kariimka la baranayo ama tafsiirkiisa aad akhrisanayso wax kaaga baxsan yihiin cilmiga naxwaha cilmiga sarfiga bal balaaqada hadii aanad kuba dadaalinba waayo erayada markasto xarakada am isbedela ama xaraf macnaha isbedelaya imika yahtaduna ihtada bay ka timi yahduna hada bay ka timi wasfigooduna wuxuu noqonayaa muhtadi iyo haadi muhtadi waa kii hanuunsana alhaadina waa kii xanuuninayay marka qofka uu xanuuninayana uu ka sii wanaag badan yahay ka hanuunsan oo intuu hanuunay buu xanuuniyay oo horumarkii la gurmaday idan marka kaligood ma aha un dad hanuunsane waxba bay hanuuninayaan yahduuna an-naas bil haqq wa bihi ya'diluun marka taasina waa qiimeyntu quraanku ina barayo si fiican inaan u qiimeyno oo qofku wanaag u leeyahay aan la qarinin halkan ilaahay wuxuu sheegay reer banu israa'iil intii ay dhibaatoodeen kadib inuu ilaahay waraabiyay raashin u diyaariyay cunno iyo cabitaan buu u diyaariyay taasina waxay sheegaysaa waa ikhraajul minahi ba'da al mihan hadaba hadiya jeer waxa soo mara mixnadii iyo dhibaato ilaahayna markaa minax buu dambaysiiyaa ana mixnadii waa dhibkii soo gaadha laga dhaqdhaqaayo dheef iyo baraare iyo barwaaqa la siiya tijaabooyinkay ka mid tahay ilaahay doomaha u mariyo marka hadee wixii soo maray xusuustaan oo ay mahadnaqaan oo ilaahay baa dhibkii naga dul qaaday ma sha Allah alxamdulillah nicmada ku dhagaanay xijistaan ila waxa loo rafaadinayo dhibka loo soo mariyay la'allahum yarji'un ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا حكمة وامحي لعلهم يرجعون محندي يدبك waxay u soo marayaan dadku bal inay soo noqdaan marka dad aqli loo miyir qabaha yaagsan way haday toobad keenan iskartaan oo dhahan war waxa baynu helay barwaaqiya baraaraynu helay ilaahay waa kan inoo nicmeeyay dhinac walba ti alxamdulillah yeena wixii hore ku noqon haday laakiin sidii bahalkii raha la oran jiray marka oo biyaha hela dhiidha wax miyir qabo hadaad aragta buu ilaahay rag raha Soomaalidu way ka been sheegana uu tasbiixsanayaa hadaad tidhaahdo markaad balaayada ilaahay uu ka dul qaadeed barwaaqo hesho wax miyir qababa hadaad aragto wadana durbaankaagi garaacdo araxda laga jebinaya sida ilaahay ummadan uu xusay walaakin kaanu anfusahum yadlimuun dheeftii ay heleen dib hadana ilaahay ugu bedelay dulmigana ayagu ku dhacay aayaadka ilaahay way badayn ee uu siiyay anbiyada waa aayatun bacdaha aaya tawassucda halka wuxuu isticmaalayaa nabi muuse waa ul ayuu isticmaalayaa wuxuu ku isticmaalayaa waa dhagax wuxuu soo deynayaa 12 ilood oo ku saameelan 12 ka qabiil waa saddex mucjiso istabahaya dhagaxan sida dariilka uu bahalkii ushan bahalka saa u daloorisay 12 afartii jaho ayaa mid walba saddex ilood sii deysay saddex afar lagu dhuftay waa 12 warka waa mucjiso kala dambayso mucjiso kale saddex mucjiso ay saaran oo la isticmaalay dhagax biyo soo daayay qadarkii loo baahnaayo 12 iloodna soo daayay waa awoodaha ilaahay subhanahu wa ta'ala وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وحي شيغيسا وتجري المعصية إلى مفاسد حتى معصية الدين ويدو مفسدة كأك تاهو ربا ينوسا قدمني مركضتكو أي فرفرين كدين وآيان وحو إلهي حمى الله وحيابو إلهي كحالان تنميي واحد ايكتاون وحاني مهدينين لهي وضو القادن لكن واحد شراه وقت آن ودل القادني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قفك ظالم كإلهي ويرك هذه أبو النبي عليه الصلاة والسلام لكن مركو قبتاء رحذ كتشبية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لمن كوالا لساير أو لو سهل أو لو برواقية مركي دين وايين ظالم وان قبتاء إلهي يقوم بانا وحسيا لا إلهي وحب ميالي سبحانه وتعالى كدروس إنه كبر إن آيات وحا كمذا inaynaan ilaahay nicmooyinkiisa edab darro kala hortagin iyo dafiraad iyo u dhagoolayn iyo isdiidsiin laakiin aynu shukri iyo mahadnaq iyo tawaaduc kala hortagno saasay ku kordhaysa linicami qayd nicmadu waxay leedahay dabar wahuwa shukr waa mahadnaqa haddii nicmada
shukrigaa loo badiyo iyo mahadnaqa iyo ictiraafka waxay noqonaysaa mid suganta haddii kalena balaayaa soo bedesha tataxawalu nicam ilaa niqam nicmooyinka ilaahay waxay isu bedelayaan balaayo sidaa ilaahay buu lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid allahu subxaana wa tacaala